رسولكنا مركي جنة أحد آخرته وإلهي الضماء كلا حكمه روح وجوه الرية أو جنة سلسلة هذا جرى ورسولك صلى الله عليه وسلم روح وجوه الرية سلسلة الجنة جرى ورسولك إلى غفك إلهي كوك إكرامية أو لو إكرامية وحاليا مركز جنادي وصالح كليا ملك جبريل بالله السعدة مركز جنادي يقول روح ذي يدون كذا لفيرينا وابا قبرنا عدنا أوجه يسر رسولك والله تابع يسوع جنادي لقش ويا يا رسولك بلا ملك جبريل عليه السلام ما حيت هاي قبردان وحالي يري وهاي كقولي ستي المهد التربية ديس وهاي كقولي ستي المهد التربية ديس ولبا هاي داسو la sheego inay tahay hooyo agoonnimo ku koris oo waliba kalinimo ku koris maantana agoonta iyo agoon u ekohu labaduba inay ku badan yihiin agoon iyo agoon u ek aabu haduu doorkiisa qaadan waayo oo ilmo dayaco agoon u ek laakiin reerkii hooyo fiican la way baxsadaan reerkii aan hooyo fiican lahayn xataa hadii aaba fiican leeyihiin ma baxsadaan waxa la wada og yahay way marka waxa la yiri hooyadu waa madrasada koowaad wax laga soo barto waxa la ilmuhu guriga iisaarka waxa la dhaho in ma aragtay aad walaalka wax qaaliya u quurto oo aad raadayso naftaada intaad ka goyso aad isaga siiso guriga laga soo bartaa waa tarbiyada koowaad waxa la yiri tadxiyada inaad adigu u tadxiyayso isaga guriga laga soo bartaa cadaaladda guriga laga soo bartaa raxmadda guriga laga soo bartaa takaafulka iyo isxambaarka guriga laga soo bartaa mas'uuliyadda guriga laga soo bartaa sidaas daraadad al-ummul murabbiya masdarul quwwa weeye aw tharwatul bashariyya labadaas isku darsatay hooyada murabbiyada ahi waa awood iyo xoog baalir dabaabadaha iyo taarayaasha ka xoog badan oo cid is hortaagi karta aysan jirin weeye tharwatul bashariyana waa tahay wax soo saarka bulshada waxa la yiri waxa quantity balas quality baaqima leh laakiin hadii quality quantity iska bato sidaynu maanta u badannahay oo maanta hal doorku inoo ku yar yahay wax qiimo ah ma leh laakiin waxa la rabaa quality in lagu daro quality marka yaa sameyn kara hooyada sameyn karta hooyadaas waxa ma sameyn karta biduun cilmi biduun tababar la'aan biduun magac waa inay hooyadu cilmi barata waa in la tababara waa inay cid gacan qaadataa hesha waa inay cid wax ka qaadataa hesha hadaad adigu inta wada hooyada Soomaaliyeed in meel badan ay ku firfircoon tahay baa jirta marka inay muhiimada koobaad ay gacanta saarto ustaadada doorka labaad iska leh laakiin su'aasha aan aad maaragtay aan rabo calaamatu su'aalka inaan saaro annaga burburkii Soomaaliyeed markuu nagu dhacay fiiri 50 sano oo gaab ah wax jira wax ku dhow oo gaab ah baa nagu jiro ilmihii burburkii Soomaaliyeed 20 sano ka hooseeyay wali caruur buu ahaa secondary muusan dhamin 30 sano ku dhawaad oo burbur ana waana soo galay 50 years wax ku dhow oo gaab ah baan ku jirnaa aawa jiilkii umad bedeli lahaa jiil aan dawlad arag jiil aan tarbiya arag jiil aan hooyo guri u joogta arag jiil aan niyad sami arag baa loo badan yahay in yar umada naadirkeeda baa la yiri ma gasho baa la yiri naadirku qiyaas ma galo qiyaasta mucdamka umada ayaa laga soo qaataa sidaas daraadeed baa leaders fiican u laana sidaas daraadeed baa hoggaan fiican u laana sidaas daraadeed baa wadaniyad u laana sidaas daraadeed baa wadankeena gacmaheena ku burburinayna hooyadu markay guriga ka baxday oo ay nolosha raadisay yes waxay ahayd wax loo baahnaa laakiin inta ay ku weyday baa ka badan inta ay soo xiraysay inta ay ku weyday baa ka badan hooyada saaka guriga ka baxdo caawa soo gashay muhiimadii Ilaahay ugu talagalay oo iyo shaqadii wadiifadii rasmiga ahayd bay ka tagtay ayadoo daalan sida ay u samaysan tahay biologically say u samaysan tahay dareenkeeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala caadifadu ku badiyay ragana adayga lagu badiyay caadifada Ilaahay wuxuu ugu badiyay waa xasaasi hooyadu waxa loogu badiyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ogyahay inay ubad soo saarayso sidaas daraadeed naxariis badan iyo jiljilaac badan baa laga rabaa ma keeni karto shaqada adag oo ragga loogu talagalo markaynu banaanka u baxnay jiilkan maxay ahaataaye wax inuu ku tilmaamna aan maanta garanaynin oo suuqa inoo jooga ayaa inoo soo baxay sidaas daraadeed waxaan aad u boorinayaa in wadaniyada la xoojiyo barnaamijyada noocan inoo isugu yimaado in ma aragtay aad iyo aad loo booriyo in hooyada wax la baro inay hooyadu Ilaahay ka cabsato in cilmiga gabdhaha yarka ay bartaan shariicada islaamku wax badan bay adkaysay waa ahkaam adag baa noo la dhijiyay waxa la jiro waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkay waa dhanbaaday hibahay u soo soconin مقاصد الأسرة وحلا دحاجرة مقاصد الأسرة أسرة مقاصد إلهي مقاصد الشريعة نقشين سما مقاصد الأسرة باجرة مقاصد إلهي قلت لك إنه قيس جرو واي لو جعلها إنه قيس جرو وحاول حفظ النسل ترنك إلا إلاليه
taranka in lagu ilaaliyo ay dadku bataan waa xifdu nasab abtirsiye qofka inuu galo meeshuu galo ma ahan qabiil nasabku hebel ina hebel baa la rabaa maxaa la diidayaa mamnuucu tamani waagi hore tamani iyo ilma aan la dhalin baa la sheegan jiray kaasaa la rabaa in la diido waa soo gabagabeeyey waxaa la mamnuucu zina inay fawaaxishtu iyo waxa xun ay faafaan ayaa la diidan yahay waxaa la rabaa taxqiiqu sakan gurigu qoys markuu yahay deganaansho waa inuu ka dhashaa jacayl raxmad wixii ilaahay ugu talagalay waa in qoyska laga helaa hadduu qoys gaajaysan oo guura qaba waxa weeye umul baadi ay joogtaa habeen baa la guuraa way gaajaysan tahay cidda bushidaysa male habeennimadaas marka la soconaya na adoo gaajaysan adoo guura qaba adoo sida geela dhalay godolan oo irmaan waa umul naasiiba caana ka dacayaan adoo sida geela dhalay godolan oo irmaan loo joojin maayo safar baa lagu jiraa baawur ma jiro diyaarad ma jirto 10 saac ama 12 saac baa la soconaya baadiyaa lagu socdaa adoo bay tiri sida awr gurgura gibilan oo wax sida xamna waatay dhabarkana waxbaa ku sida waana la soconaya cid isu intaas oo hawl waxay tiri marka bay tiri intaas adigoo qaba oo dhibaatooyinka qaba awrku wuxuu dooneen inaad dabarka soo xirta waa hawshii baadiyaha inaad ratiga dabarka soo xirta laga rabaa haddana waxay tiri arigu wuxuu doonin inaad soo dabaalataa xoolihii maanta la degay ninku maanta oo dhan rutigiisa soo hogaaminaya gaag u jiistay xooluhu waa fakanaya dhul cusub ay yimaadeen adaa la rabaa marka inaad isu soo celceliso xoolihiina inaad soo celisay ka rabaan buu yiri aqalku wuxuu doonin inaad soo dugaalisa guriga inaad dhistana adiga laga sugaya saygu wuxuu doonin inuu meel dugsoon gala xurmadii iyo qiimihii rag u lahaa baa wali dadka ku soo weyn odaguna meel dugsoon inuu galo raba waliba wuxuu doonin inaad daana ugu darta nin raga wuxuu eelkiisa nin raga wuxuu ahalkiisa ka dooni jirayna waa laga rabaa weeye wax way ku soo gabagabaysay waxba aniga ha idudin waxa ku haysata danta hadii lagu soo furo